gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba. waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay xarun uu ka socday shir ay lahaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, waxaana ku dhintay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, kuwa kalena oo ay ku dhaawacmeen oo ku jiro duqa magaalada Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay waxaa la socday wariyaheenna Rijaal Cabdi oo ila jooga. Rijaal soo dhaw. waa maasan tahay maxamed. warar kala duwan waxay ka soo baxayaan qarax maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho, sida ay sheegeen oo idaacadda Risaale ee Muqdisho ay u xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. qaraxa waxa uu ka dhacay hoolka shirarka inta badan ba lagu qabto shirka amniga caasimadda. sida horeba dadweynuhu ay ula socdeen, shirka amniga caasimadda waxa la qaban jiray isbuuci hal mar, laakiin sida uu dhawaan sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir dhanka amniga iyo siyaasadda, shirku waxa uu ahaa mid maalin walba la qabto gelinka dambe ka dhaca magaalada Muqdisho, isla markaana looga hadlay amniga. shirkaas waxaa kasoo qayb gala inta badan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, maamulka sare ee gobolka Banaadir, agaasimayaasha iyo taliyayaasha ciidanka booliiska ee degmooyinka. inkastoo mas'uuliyiinta gobolka Banaadir aysan weli si rasmi ah u xaqiijin qaraxa meesha ka dhacay nuuca uu yahay, wararka qaarna waxay sheegayeen qarax uu ahaa qof ismiidaamiyey oo halkaas isku qarxiyay xilli mas'uuliyiinta ay shirka ku jireen. waxa si rasmi ah ilaa hadda loo xaqiijiyay geerida gudoomiyaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir degmooyinka gobolka Banaadir. waxaa kamid ah gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Sabax Asad oo kamid ah dadka halkaas ku geeriyooday. meydkeeda waxaa la geeyay isbitaalka Madiina ee Muqdisho, sida ka hordhow ay xaqiijisay xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. waxaa sidoo kale kamid ah dadka geeriyooday gudoomiyaha degmada Waaberi Mahad Cilmi oo asna kamid ahaa dadkii ka qayb galayay shirka amniga ee caasimadda. wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan inay geeriyoodeen inkastoo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin agaasimaha nadaafadda ee gobolka Banaadir, afhayeenka hore ee gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane, sidoo kalena afhayeenka gobolka Banaadir ee hadda Saalax uu yahay asna dhaawac. sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan inuu geeriyooday Cabdullaahi Dheere oo ahaa madaxii shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maamulka gobolka Banaadir waxay xaqiijiyeen in uu kamid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxa xilligan ay socoto in xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo oo isbitaalada mid kamid ah isbitaalada Muqdisho la geeyay. qasaaraha sida rasmiga ah weli lama ogaa karo. gurmad ayaa weli socda, mas'uuliyiintii kala duwanaa goobta ku sugnaa, taliyayaasha degmooyinka booliiska gobolka Banaadir qaarkood ayaa kamid ah dadka ay waxyeeladu soo gaartay. dad badan ayaguna amniga ka shaqeynayay oo goobta ku sugnaa ayaa waxyeelooyin kala duwan soo gaartay. weli waxaa socda hawlihii dadka lagu badbaadinayo sida maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen, laakiin hadda dhimashada laba gudoomiye degmo, dhaawaca gudoomiyaha degmada Waaberi iyo gudoomiyaha degmada Cabdicasiis iyo sidoo kale dhaawaca gudoomiyaasha degmooyinka warta nabadda Seynab Maxamuud Warsame iyo weliba gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo asna dhaawaciisa marka hore waxa soo baxay warar sheegayay in dadka halkaas ku dhaawacmay sidoo kale ay kamid tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basmo, laakiin Basmo waxay xaqiijisay inay caafimaad qabto oo aysan waxyeello soo gaarin. mas'uuliyiinta sare ee gobolka Banaadir, gudoomiye ku-xigeenada way bad qabaan, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaasha ayaa waxyeelada ugu badan soo gaaray. rijaal oo kugu soo laabana dabaashan ugu soo biiray oo isna arrinta aan kala socdo. dabaashay maxaa inta rijaal uu sheegay ka duwan oo nagu biiri kartaa? maxamed, inkastoo dabcan ilaa hadda aan lagu degdegi karin wararka soo baxaya oo ilaa hadda warar sax ah ama dhab ah aan laga heli karin qasaaraha, inkastoo warar kala duwan ay soo baxayaan. isbitaalka ugu weyn caasimadda ee Digfaar waxaa la dhigay mas'uuliyiin badan oo ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dabcan dhaawac uu ka soo gaaray weli la dabiibayo sida ila xogaalay noo xaqiijiyeen. sidoo kale dadka halka la dhigay dhaawacaan loo geeyay oo dhintana waxaa kamid ahaa sida hadda wariino noo sheegaba agaasimaha nadaafadda gobolka oo horan u ahaa afhayeenka gobolka Banaadir Xalane iyo weliba agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha gobolka.
warar kala duwan waxay sheegayaan inay jiraan xubno kale oo mas-uuliyiin ah oo saraakiil booliis ay ku jiraan ina dhaawacyo ay soo gaareen inkastoo ilaa haddaysan noo suurtagelin helista magacyadooda iyo weliba inta dhaawacyo ee soo gaartay saraakiisha laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in khasaaruhu uu ahaa khasaare aada xaad leh oo inta badan dadka dhintay iyo dhaawacmo ay ahayaanba mas-uuliyiin hoolka ku sugnaa xilligan loo soconayay shir mas-uuliyiinta amniga kaga hadlayeen arrinta xusuuda badan marka waxay tahay maxamed ilaa hadda maxaa ka dhacay hoolka shirka ka soconaya waa tan ilaa hadda aan weli aan la ogaan qaraxa dhacay inuu ahaa haweeney wararka qaar waxay leeyihin haweeney baa soo midaamisay oo halkaa oo sumanka waxyaabaha qarxa sidita isku qarxisay halka wararka qaarna ay leeyihiin waa qarax meesha lagu diyaariyo hoolka saa wax ku qarxin inkastoo mas-uuliyiinta gobolka oo ugu horreeyay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga Tuulax oo la hadlay warbaahinta dowladda uu sheegay in baaris ay wadaan ilaa haddana aan laga hordhici karin nooca qarax ee ka dhacay hoolka laakiin waxaa xusud mudan waxay tahay in hoolka lagu sharayay gobolka Banaadir ay tahay meel amnigeedu si weyn loo adkeeyo oo dhowr checkpoint ay ka horeyso oo aysan suurtagal ahayn qof aan aqoonsi wadan iyo qof aan la aqoonba inuu kasoo gudbo saddexda albaab ee baarista xarunta gobolka laga galo marka waxyaabaha hadda sida weyn loo hadalhayo waxaa kamid ah qaraxa dhacay nooca uu ahaa iyo in haweeney isqarxisay iyo in qaraxa goobta lagu diyaariyay inkastoo laamaha amniga oo ugu horreeyay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga Tuulax oo shakhsiyaadka badbaaday kamid ahaa warbaahinta qaranka uu sheegay in baaris ay wadaan welina aan laga hordhici karin marka waxaa suurtagal ah isla caawa barnaamijka dhacdooyinka tan ka gaari doona warar kala duwan iyo macluumaadyo ku saabsan qaraxan iyo sida wax u dhaceen iyo qasaaraha ugu dambeeyay inay soo bixi doonaan Tuulax ayaan dhageysanaynaa oo aan soo gudbin doonaa intaan rijaal u gudbin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa qarax oo maanta ka dhacay xaruntii gobolka dad badan oo runtii mas-uuliyiinta gobolka kamid ah wax ku noqday weli waxaan ku jirnaa dhaawacyadii iyo dadkii higay wax u gaareen saacadooda gudoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda saaladii qaliinka lagu jiraa dhowr gudoomiye degmana wax ku noqdeen qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka hoolkii shirarka oo shirkii tubta maanta maalin arbacay ahayd dhammaan gudoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo gudoomiyihii gobolka kulli waxaa lagu jiray shirkaa lagu jiray marka qadara meeshaas ka dhacday wax ilaahay qoray ahayd nimankan cadowga ahna mar walba dagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si un wax u geystaan oo isqarxiyaan marka weli ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyey iyo mid isqarxiyey uu yahayba dib ayaana rabaa inaan kasoo sheegno waxaan shacabka gobolka Banaadir u baaqayaa inay isdejiyaan waxaa dhacan inay tahay wax qadara oo ilaahay qoray gudoomiyihii gobolkana waa uu nool yahay haddana maaragtay lala tacaalayo caasimad hadda sida ay loo xaqiijiyeen dhakhaatiirtu wareegii koowaad weli waa fiican yahay ma fahanta qaliinuna hadda ku jiraa marka qaliinka markuu kasoo baxay xaqiijin doonaa sida ay xaaladdu tahay dhowr gudoomiye degmada qaraxa ku dhintay ayadana dib baan kasoo xaqiijin doonaa magacyada iyo inta dhaawaca ah iyo inta ay wax noqotay laakiin waxaan rabaa shacabka inaan ku sheego inay tahay waxaan wax qadara oo ilaahay qoray qofkii ilaahay u qorana uu dhimanayo inayna isdejiyaan nimankaan anaga mar walba oo nagama leexin doonaan maaragtay howlaha aan qaranka u hayno si walba iskugu dayaan inay dhibaato u geystaan waxaa ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Tuulax oo la hadlayay warbaahinta dowladda kana hadlayay weerarkaas ilaa iyo hadda xogaha ay ka helayaan dhaawacyada iyo dhimashada uu sababay qaraxa ka dhacay gudaha xarun uu shir uga socday mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir rijaal ayaan ku soo laabanay rijaal weli macluumaad ma laga hayaa qaraxa waxa uu ahaa iyo sida uu ku fududaaday in xarun ay shir ku lahaayeen mas-uuliyiintan uu ka dhacay maxamedow horta shaqaale ka tirsan gobolka Banaadir iyo dad goobtii ku sugnaa oo howlwadanada gobolka Banaadir kamid ah qaarkood oo aan la hadalnay waxay sheegayaan in qaraxan uusan horta ahayn qarax gaari inuusan ahayn laakiin ay u badan tahay inuu yahay qof soo midaamiyey si gaarana qaraxan uu kaga dhacay dadku waxay noo sheegeen goobta ku sugnaa in hoolka shirarka ee amniga oo inta badan looga doodo oo mas-uuliyiinta amniga ay kaga shiraan gudihiisa inuu qaraxu ka dhacay waa sida qaar kamid ah shaqaale
shaqaalaha aynu xaqiijin inkastoo laamaha amniga gobolka banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya intaba aysan wali xaqiijin oo waliba qasaarahan aan la ogaa karin saacadda ka dambaysa dadka dhimashadooda iyo dhaawacooda la soo sheegayo waxyeelada soo gaartay waa sii kordhayeen ilaa intii qarax u dhacay xarunta gobolka banaadir maxamed sida dadweyne og yihiinba waxay ka mid tahay xarumaha muqdisho ku yaala kuwooda sida weynka loo ilaaliyo aad baa loo ilaalishaa wadooyin badan oo soo gala xaruntu way xiran yihiin qofka u socda xarunta miyaha gobolka banaadir iyo mas'uuliyiin qofka raba inuu tago waxa uu maraa baaritaano badan oo ilaa iyo 4 gaaraya ayaa la marsiyaa marka ugu dambaysa ay gudoomiyaha iyo qaybta gaarka ah uu ku shaqeeyo uu qofku gaari karaa marka meeshan shir baa ka socday shirkii amniga socday sida mas'uuliyiintu ay xaqiijiyeen welina hadee si rasmi ah looma ogaa karo qasaaraha dhimashada waa dad badan baa waxyeelo soo gaartay dad badan oo kalena waxay sheegayaan in ay caafimaad qabaan wax marka dadweynuhu ay aad ka mas'uuliyiinta gobolka banaadir waxay shacabka ugu baaqayaan inay ku baaqayaan saacadii ugu dambeeyay dadweynuhu isdejiyaan in dadka dhaawacman lala tacaalayo kuwii dhintana waa u taxsiiyeen sida gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir tuulaxba uu sheegay هذا ما سين هي ورينا رجال عبدي وراك هذا نسوق قارين وحي شيقيان إن قدوميها قبل كبنادر أنا دوقة مقالة مقدشو حالة ساعة في ماذا tahay in qolka qalliinka ama saalada uu ku jiro oo dhaqaatiirta wali ay la tacaalayaan dhaawacii soo gaaray wali faahfaahin lagama hayo dhaawaca soo gaarinta uu leeyahay iyo waliba meelaha uu ka soo gaaray laakiin mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay baraha bulshada ay ku leeyihiin bogag ay ku leeyihiin baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter ay ku soo qorayaan in gudoomiyaha uu galayo qalliinkii labaad oo uu ku jiro mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho dadka geeridooda la xaqiijiyay waxaa kamid ah gudoomiyaha degmada Waaberi iyo sidoo kale gudoomiyihii degmada Cabdilcasiis iyo waliba agaasimihii waaxda nadaafada ee maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin kale ayaa suuragal ah inay dhinteen kuwa kalena ay dhaawac yihiin haddii aad nagu cusub tahay fadlan taabo subscribe gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay xarun uu ka socday shir ay lahaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaana ku dhintay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo ku jiro duqa magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay waxaa la socday wariyaheenna rijaal cabdi oo ila jooga rijaal soo dhaw waa maasan tahay maxamed warar kala duwan waxay ka soo baxayaan qarax maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho sida ay sheegeen oo idaacadda Risaale ee Muqdisho ay u xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir qarax waxa uu ka dhacay hoolka shirarka inta badan ba lagu qabto shirka amniga caasimadda sida horeba dadweynuhu ay ula socdeen shirka amniga caasimadda waxa la qaban jiray isbuuci hal mar laakiin sida uu dhawaan sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir dhanka amniga iyo siyaasadda shirku waxa uu ahaa mid maalin walba la qabto garinka dambe ka dhaca magaalada Muqdisho isla markaana looga hadlay amniga shirkaas waxa ka soo qayb gala inta badan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir maamulka sare ee gobolka Banaadir agaasimayaasha iyo taliyayaasha ciidanka booliiska ee degmooyinka inkastoo mas'uuliyiinta gobolka Banaadir aysan wali si rasmi ah u xaqiijin qaraxa meesha ka dhacay nooca uu yahay wararka qaarna waxay sheegayeen qarax uu ahaa qof ismiidaamiyay oo halkaas isku qarxiyay xilli mas'uuliyiinta ay shirka ku jireen waxa si rasmi ah ilaa hadda loo xaqiijiyay geerida gudoomiyaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir degmooyinka gobolka Banaadir waxaa kamid ah gudoomiyaha degmada Cabdilcasiis Sabax Asad oo kamid ah dadka halkaas ku geeriyooday meedkeeda waxa la geeyay isbitaalka Madiina ee Muqdisho sida ka hordhow ay xaqiijisay xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaa sidoo kale kamid ah dadka geeriyooday gudoomiyaha degmada Waaberi
mahad cilmi oo asna kamid ahaa dadkii ka qayb galayay shirka amniga ee caasimadda wararka sidoo kale waxa ay sheegayeen riyodeen inkastoo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin agaasimaha nadaafadda ee gobolka Banaadir afhayeenka hore ee gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane sidoo kalena afhayeenka gobolka Banaadir ee hadda Saalax u yahay asna dhaawac sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan inuu geeriyooday Cabdullaahi Dheere oo ahaa madaxii shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maamulka gobolka Banaadir waxay xaqiijiyeen in uu kamid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxa xilligan ay socoto in xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo oo isbitaalada mid kamid ah isbitaalada Muqdisho la geeyay qasaaraha sida rasmiga ah weli lama waa karo gurmad ayaa weli socda mas'uuliyiintii kala duwanaa goobta ku sugnaa taliyaasha degmooyinka booliiska gobolka Banaadir qaarkood ayaa kamid ah ay waxyeeladu soo gaartay dad badan ayaguna amniga ka shaqeynayay oo goobta ku sugnaa ayaa waxyeelooyin kala duwan soo gaartay weli waxa socda hawlihii dadka lagu badbaadinayo sida maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen laakiin hadda dhimashada laba gudoomiye degmo dhaawaca gudoomiyaha degmada waa bari iyo gudoomiyaha degmada Cabdicasiis iyo sidoo kale dhaawaca gudoomiyaasha degmooyinka warta nabadda Seynab Maxamuud Warsame iyo waliba gudoomiyaha degmada Howlwadaag asna dhaawaciisa marka hore waxa soo baxay warar sheegayay in dadka halkaas ku dhaawacmay sidoo kale ay kamid tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basmo laakiin Basmo waxay xaqiijisay inay caafimaad qabto oo aysan waxyeello soo gaarin mas'uuliyiinta sare ee gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenada way bad qabaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaasha ayaa waxyeellada ugu badan soo gaaray rijaal oo kugu soo laabana dabaashan ugu soo biiray oo isna arrinta aan kala socdo dabaashay maxaa inta rijaal uu sheegay ka duwan oo nagu biiri kartaa maxamed inkastoo dabcan ilaa hadda aan lagu degdegi karin wararka soo baxaya oo ilaa hadda warar sax ah ama dhab ah aan laga heli karin qasaaraha inkastoo warar kala duwan ay soo baxayaan isbitaalka ugu weyn caasimadda ee Digfeer waxaa la dhigay mas'uuliyiin badan oo ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dabcan dhaawac uu ka soo gaaray wali la dabiibayo sida ila xogaalay noo xaqiijiyeen sidoo kale dadka halka la dhigay dhaawacaan loo geeyay oo dhintana waxa kamid ahaa sida hadda wariino noo sheegaba agaasimaha nadaafadda gobolka oo horan u ahaa afhayeenka gobolka Banaadir Xalane iyo waliba agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha gobolka warar kala duwan waxay sheegayaan inay jiraan xubno kale oo mas'uuliyiin ah oo saraakiil booliis ay ku jiraan in dhaawacyo soo gaareen inkastoo ilaa hadda aysan noo suurtagelin helista magacyadooda iyo waliba inta dhaawacyo ee soo gaartay saraakiisha laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in qasaaruhu uu ahaa qasaare aad xad leh oo inta badan dadka dhintay iyo dhaawacmay ay ahaayeenba mas'uuliyiin hoolka ku sugnaa xilligan loo soconayay shir مسؤولينتا أمنية كجهلين أنت حسيت بدل مركو حتى محمد لا هذا محاك هذا حول كشركة وكسرنا وطن لا هذا عن ولي اللوجان قرح دعي إنه هويني ورك قرح لينا ويني بسمي ده مسي أو هلكا أو سمك وحيابها قرح سي تسكو قرح سي هلكا ورك قرن اللي هن وقرح ماشي اللي قد ياري هولكا ساو حكو قرحين إنك مسؤولينتا قبل كا أو وهري قدام كحين كدن كأمنية تولح أو لا اللي وربعين تدولة وشجع إن باريس أي ودان إلى حد عن لجور دعي كرن نوع قرح كدعي هولكا لكن حسد مدن حتى إن هولكا اللي وشرع قبل كبنادر يتعمل أمنية سوون لوعت كي دور جاك بونتي أي كهري سو أي صورت جلهن قف عن قوس ودن يقف على القوم بإنه كسو جد saddexda albaab ee baarista xarunta gobolka laga galo marka waxyaabaha hadda sida weyn loo hadalhayo waxa kamid ah qaraxa dhacay nooc uu ahaa iyo in haweeney isqarxisay iyo in qaraxa goobta lagu daaray inkastoo laamaha amniga oo ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga tuulax oo shakhsiyaadka badbaaday kamid ah warbaahinta qaranka uu sheegay in baaris ay wadaan welina laga hordhici karin marka waxa suurtagal ah isla caawa barnaamijka dhacdooyinka tan ka gaari doona warar kala duwan iyo macluumaadyo ku saabsan qaraxan iyo sida wax u dhaceen iyo قصارها وقدم بين صبح دوران وتولى حيان دقيسانينا وأن سو قدبين دورنا إنتان الرجال وقدبين إن الله وإنا إليه راجعون وحا قرح ومانتا قدعي حرمتي قبلك dad badan oo runtii mas'uuliyiinta gobolka kamid ah wax ku noqday weli waxaan ku jirnaa dhaawacyadii iyo dadkii hidii wuxuu gaaray masaacadooda gudoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda saaladii khaliilka lagu jiraa دور قدوم دقمنا وح كنا قضين قرحوا ماشي وكنا عينا
xarunta gobolka howlkii shirarka oo shirkii tubta maanta maalin arbacay ahayd dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo gudoomiyihii gobolka kulli waxaa lagu jiray shirkaa lagu jiray marka qadara meeshaas ka dhacday waxay ilaahay qoray ahayd nimankan cadowga ahna mar walba dagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si un wax u geystaan oo isqarxiyaan marka weli ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyey iyo mid isqarxiyey uu yahayba dib ayaana rabaa inaan kasoo sheegno waxaan shacabka gobolka banaadir u baaqayaa inay isdejiyaan waxaa dhacan ay tahay wax qadara oo ilaahay qoray gudoomiyihii gobolkana waa uu nool yahay haddana maaragtay lala tacaalayo caafimaadkiisa hadda sida ay loo xaqiijiyeen dhakhaatiirtu wareegii koowaad waa fiican yahay ma fahamta qaliinuna hadda ku jira marka qaliinka markuu kasoo baxa kadib aan xaqiijin doonaa sida ay xaaladdu tahay dhowr guddoomiye degmaha qaraxa ku dhintay ayadana dib baan kasoo xaqiijin doonaa magacyada iyo inta dhaawaca ah iyo inta ay wax noqotay laakiin waxaan rabaa shacabka inaan ku sheego inay tahay waxaan wax qadara oo ilaahay qoray qofkii ilaahay u qorana uu dhimanayo inayna isdejiyaan nimankaana anaga mar walba oo nagama leexin doonaan maaragtay howlaha aan qaranka u hayno si walba iskugu dayaan inay dhibaato u geystaan waxau ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed tuulax oo la hadlayay warbaahinta dowladda kana hadlayay weerarkaas ilaa iyo hadda xogaha ay ka helayaan dhaawacyada iyo dhimashada uu sababay qaraxa ka dhacay gudaha xarun uu shir uga socday mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir rijaal ayaan kusoo laabanaya rijaal weli macluumaad ma laga hayaa qaraxa waxa uu ahaa iyo sida uu ku fududaaday in xarun ay shir ku lahaayeen mas-uuliyiintan uu ka dhacay maxamedow horta shaqaale ka tirsan gobolka banaadir iyo dad goobtii ku sugnaa oo howlwadanada gobolka banaadir ka mid a qaarkood oo aan la hadalnay waxay sheegayaan in qaraxan uusan horta ahayn qarax gaari inuusan ahayn laakiin ay u badan tahay inuu yahay qof soo midaamiyey si gaarana qaraxan uu kaga dhacay dadku waxay noo sheegeen goobta ku sugnaa in hoolka shirarka ee amniga oo inta badan looga doodo oo mas-uuliyiinta amniga ay kaga shiraan gudihiisa inuu qaraxu ka dhaco waa sida qaar ka mid ah shaqaalaha aynu xaqiijin inkastoo laamaha amniga gobolka banaadir iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya intaba aysan weli xaqiijin oo weliba khasaarahan aan la ogaa karin saacadda ka dambeysa dadka dhimashadooda iyo dhaawacooda la soo sheegayo waxyeelada soo gaartay waa sii kordhayeen ilaa intii qaraxu dhacay xarunta gobolka banaadir maxamed sida dadweyne og yihiinba waxay ka mid tahay xarumaha muqdisho ku yaala kuwooda sida weynka loo ilaaliyo aad baa loo ilaalishaa wadooyin badan oo soo gala xaruntu way xiran yihiin qofka u socda xarunta weliba gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta sare goobaha ay ku sugan yihiin qofka rabaa inuu tago waxa uu maraa baaritaano badan oo ilaa iyo 4 gaaraya ayaa la marsiya marka ugu dambeysa ay gudoomiyaha iyo qaybta gaarka uu ku shaqeeyo uu qofku gaari karaa marka meeshaan shir baa ka socday shirkii amniga socday sida mas-uuliyiintu ay xaqiijiyeen welina hadee si rasmi ah looma ogaa karo khasaaraha dhimashada waa dad badan baa waxyeelo soo gaartay dad badan oo kalena waxay sheegayaan in ay caafimaad qabaan wax marka dadweynuhu ay aadka mas-uuliyiinta gobolka banaadir waxay shacabka ugu baaqayaan inay ku baaqayeen saacadii ugu dambeeyay dadweynuhu isdejiyaan in dadka dhaawacman lala tacaalayo kuwii dhintana waa u taxsiiyeen sida gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir tuulaxba uu sheegayay aad u mahadsan yahay wariyeen rijaal cabdi wararka haddana soo gaarayeen waxay sheegayaan in gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xaaladiisa caafimaad ay tahay in qolka qalliinka ama saalada uu ku jiro oo dhaqaatiirta weli ay la tacaalayaan dhaawacii soo gaaray weli faahfaahin lagama hayo dhaawaca soo gaaray inta uu leegyahay iyo weliba meelaha uu ka soo gaaray laakiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay baraha bulshada ay ku leeyihiin bogag ay ku leeyihiin baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter ay ku soo qorayaan in gudoomiyaha uu galayo qaliinkii labaad oo uu ku jiro mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho dadka geeridooda la xaqiijiyay waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Waaberi iyo sidoo kale gudoomiyihii degmada Cabdilcasiis iyo waliba agaasimihii waaxda nadaafadda ee maamulka gobolka Banaadir mas-uuliyiin kale ayaa suuragal ah inay dhinteen kuwa kalena ay dhaawac yihiin
haddii aad nagu cusub tahay fadlan taabo subscribe gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay xarun uu ka socday shir ay lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir waxaana ku dhintay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kuwo kalena oo ay ku dhaawacmeen oo ku jiro duqa magaalada muqdisho. wararkii ugu dambeeyey waxaa la socday waryaheena rijaal cabdi oo ila jooga. rijaal soo dhowow. waa mahadsan tahay maxamed. warar kala duwan waxay kasoo baxayaan qarax maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho sida ay sheegeen oo idaacadda risaale ee muqdisho ay u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir. qaraxa waxa uu ka dhacay hoolka shirarka inta badanba lagu qabto shirka amniga caasimadda. sida horeyba dadweynuhu ay ula socdeen shirka amniga caasimadda waxaa la qaban jiray isbuuci hal mar, laakiin sida uu dhowaan sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir dhanka amniga iyo siyaasadda, shirka wuxuu ahaa mid maalin walba la qabto gelinka dambe ka dhaca magaalada muqdisho, islamarkaana looga hadlay amniga. shirkaas waxaa kasoo qeyb gala inta badan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir, maamulka sare ee gobolka banaadir, agaasimayaasha iyo taliyayaasha ciidanka booliiska ee degmooyinka. inkastoo mas-uuliyiinta gobolka banaadir aysan weli si rasmi ah u xaqiijin qaraxa meesha ka dhacay nuuca uu yahay, wararka qaarna waxay sheegayeen qarax uu ahaa qof ismidaamiyey oonu halkaasi isku qarxiyay xilli mas-uuliyiinta ay shirka ku jireen. waxaa si rasmi ah ilaa iyo hadda loo xaqiijiyey geerida guddoomiyaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir. waxaa kamid ah guddoomiyaha degmada cabdicasiis sabaax asad oo kamid ahay dadka halkaas ku geeriyooday. meydkeeda waxaa la geeyey isbitaalka madiina ee muqdisho sida ka hordhow ay xaqiijisay xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. waxaa sidoo kale kamid ah dadka geeriyooday guddoomiyaha degmada waaberi mahad cilmi oo asna kamid ahaa dadkii ka qeybgalayay shirka amniga ee caasimadda. wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan inay geeriyoodeen inkastoo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin agaasimaha nadaafadda ee gobolka banaadir, afhayeenka hore ee gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane, sidoo kalena afhayeenka gobolka banaadir ee hadda saalax uu yahay asna dhaawac. sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan inuu geeriyooda cabdullaahi dheere oo ahaa madaxii shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka banaadir. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maamulka gobolka banaadir waxay xaqiijiyeen inuu kamid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxa xilligaana ay socoto in xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo oo isbitaalada mid kamid ah isbitaalada muqdisho la geeyey. khasaaraha sida rasmiga ah weli lama ogaa karo. gurmud ayaa weli socda, mas-uuliyiintii kala duwanaa goobta ku sugnaa, taliyayaasha degmooyinka booliiska gobolka banaadir qaarkood ayaa kamid a dadka ay waxyeeladu soo gaartay. dad badanoo ayaguna amniga ka shaqeynayay oo goobta ku sugnaa ayaa waxyeelooyin kala duwan soo gaartay. weli waxaa socda hawlihii dadka lagu badbaadinaya sida maamulka gobolka banaadir ay sheegeen, laakiin hadda dhimashada laba guddoomiye degmo, dhaawaca gudoomiyaha degmada waaberi iyo gudoomiyaha degmada cabdicasiis iyo sidoo kale dhaawaca guddoomiyaasha degmooyinka warta nabadda Seynab Maxamuud Warsame iyo weliba guddoomiyaha degmada Howlwadaag oo asna dhaawaciisa marka hore waxaa soo baxay warar sheegayay in dadka halkaas ku dhaawacma sidoo kale ay kamid tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basmo, laakiin Basmo waxay xaqiijisay inay caafimaad qabto oo aysan waxyeello soo gaarin. mas-uuliyiinta sare ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenada way bad qabaan, gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaasha ayaa waxyeelada ugu badan soo gaaray. rijaal oo kugu soo laabana dabaashaan ugu soo biiray oo